السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو لبعض قناة كينا مرلا عدي مرسي دحادبا وأنا جو ياسين قاسم علي أو إدين تبيني برنامجك وأنا طحناها إني هليدا أورك إسوائل قيب تيسي لحاد waxaan muuqaalkani kula faguraynaa taariikh nololeedkii mudane xaaji maxamed xuseen ee ahaa xubintii afraad ee dhalinyarada ururka SYL. inta aan muuqaalkani guda gelin subscribe saar channelka laagtan taabo siina share garay fiidiyowga. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن. xaaji maxamed xuseen wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho sanadii 1917 waxa uu ku barbaaray guriga labadiisa waalid. barbaarida wanaagsan ee shariicada islaamka waxa uu u wareegay dugsiga hoose ee Talyaaniga laakiin aabihii raali kama uusan noqon wuuna ka bixiyay isagoo ka baqaya inay saameyn ku yeelato oo ay ka leexiyaan diintiisa toosan qolyaha wax gaalaysiiya. wuxuuna u diray adeerkiisa oo mahaday degnaa wuxuuna faray inuu baro kutubada fiqiga ah ilaa uu ka noqday mid ka horeeya dadka isaga la midka ahaa laguna tiriyo culimadii la yaqaanay. wuxuuna soo noqday magaalada muqdisho wuxuuna bartay dadkii degnaa ayaguna way barteen asaga oo la kulmay macaan iyo khalaal wixii ay lahayd maalmihii isticmaalka. wuxuuna dukaan yar ka furtay magaalada muqdisho kama uusan tagin akhrintii kutubada diiniga ah iyo wargeysyada. wuxuu ahaa xubintii afraad ee xubnihii 13 ahaa ee ururkii midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed asaga oo ah nin xaq ku socda kuna sabra xaaladaha ahna nin fantiisa ku qaba kalsooni adag kuna dhagan waxyaabaha uu rumaysan yahay. isaga oo la wareegay madaxnimadii ururka sanadii 1949 wuxuuna kala kulmay isticmaalka dhibab iyo xaalado adag oo noocyo badan leh. taasina ma aysan qalbi jibin ee wuxuu sii watay arrimihiisa siyaasadda. inkastoo 1946 isticmaalka Ingiriiska xaaji maxamed ka soo eriyay magaalada Khabar Dahare iyada oo aysan jirin wax dambi ah ee uu galay laakiin sababtu ay ahayd oo kali ah in ay dadku jeclaayeen isla markaana gilgiray rajooyinkii isticmaalka dadkana u sabiray dhibaatooyinka gumaysiga. sanadii 1952 Talyaanigii ayaa isna wuxuu ka soo saaray magaalada Baydhabo markii lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dhacdo ka dhacday Kismaayo. sanadii 1953 waxa uu aaday dalka Masar si uu u soo barto cilmiga siyaasadda wuxuuna galay jaamacadda Al-Azhar. kadib waxa uu wareegay kulliyadda sharciga isaga oo ku jiray 3 sano ah. wuxuuna si wanaagsan u bartay luqadda Carabiga qaybaheeda kala duwan. wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay rag siyaasadda xagga hadalka aftahanimada iyo deeqsinta hadalka. sanadii 1957 waxaa loo doortay gudoomiyaha ururka midowga dhalinyarada Soomaaliyeed. mar labaad ayaa xilkaasi loo doortay isaga oo ku sugnaa dalka Masar. taasna wax kala maysan ahayn ee dadku jecel yahay ayaa ahaa mid dhab ah. wuxuu ku soo laabtay wadanka kadib markii uu u yeeray maamulka dhexe si uu u qabto hoggaanka xisbiga isagoona wali qaadan shahaadadiisa jaamacadeed. wuxuuna ahaa nin markasta ku dadaala sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa qulubta dadka una burburin lahaa mabaa'ibda gumaysiga iyo fikradihiisa siyaasadeed isaga oo dhihi jiray ma doonayno xurnimo dhaawacan. muddo kadib waxaa soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo ka dhaxeeyay isaga iyo qaar ka mid ah maamulka dhexe ee xisbiga taasoo keentay in laga casilo hoggaankii xisbiga lagana saaro xisbiga. arintaasi oo gumaysiga Ingiriiska ayaa gacan weyn ku lahaa. arintaasi darteed waxa uu aasaasay xisbi cusub oo lagu magacaabi jiray xisbiga midnimada Soomaali weyn. wuxuuna noqday hoggaanka xisbigaasi isaga oo muujiyay firfircooni weyn iyo horumar ciyaarayna door aad u weyn dhanka siyaasadda. wuxuuna waqtigiisa geliyay kuna bixiyay arintaasi. wuxuu ammaan dheeraad ah ku lahaa dhaqdhaqaaqii Soomaaliyeed. wuxuu ahaa mid ku dadaala mideynta qaybaha Soomaaliya shanta Soomaaliya. wuxuuna ku caan baxay wadan jacayl iyo in uu u qiiroodo danaha guud. wuxuu ahaa mid waqtigu
uu saamaxay inuu hogaamiye wanaagsan ahaado, raacana wax kasta oo uu arko in waddanka dani ugu jirto. waxaana yareed in la helo cid is hortaagta quwad kasta iyo siyaasad kasta ee uu leeyahay. Wassalaamu calaykum.